Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kuna soo dhawaada warbixin kooban oo ku saabsan dhibaatooyinka in badan oo kamid ah website-yada sida wuxuu wax u qoraa ay ku hayaan dalkooda, dadkooda iyo waliba diintooda. waxaana idin xasuusinayaa in warbixintan aan ula jeedin cid gaara website gaara ujeedkuna ma ahan in aan qof wax uga sheego laakiin soo bandhigida warbixintan waxaan rabaa in aan wax badan kaga iftiimiyo inta aragtidayda iyo aqoontaydu ay la eg tahay mareega badan amba website-yada tira badan oo baahiya joogtana ka dhigtay fadeexad caay iyo sidoo kale wax ka sheegida cid waliba kuwaasi oo hareer maray sida aniga ila tahay akhlaaqdii saxaafadda meelna uga dhaca waqti walba sharafta dadka dalka iyo waliba diinta taniya markii ay burburtay dawladda dhexe ee Soomaaliya 1991 waxa gabi ahaanba meesha ka baxay sharcigii kala dambeyntii dowladda xuquuqda aadamaha iyo sidoo kale la xisaabtankii cid kasta oo xadgudub samaysa waxaana dalka intiisa badan uu isku bedelay fawdo colaado horseeday dhibaatooyin dhaxalsiiyay ummadda Soomaaliyeed in qof waliba uu sameeyo waxa uu rabo sharciyada ku dhaqankooda oo muhiimka ah isla markaana ay xaaladiisu noqotay oo daarogan waxa kamid ah sharciga saxaafadda Soomaaliya oo xilliga ay jirtay dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo kuwii ka horeeyaba ahaa mid si weyn loo ilaaliyo warbaahintuna ay ahayd waxa didan lagana warqabo wax qabadkeeda bulshada ay wax u gudbinaysan ay aad ugu xirnaayeen idaacadihii iyo wargeysyadii ka soo bixi jiray xilligaasi gudaha dalka Soomaaliya waxaana xusid mudan in wariyaha loo arki jiray qof mas'uul ah oo gudanaya waajibka ka saaran dalkiisa iyo dadkiisa wax badan kala socda wadan jacaylka qiimaha uu leeyahay iyo macna ahaan waxa ay tahay warbaahin sidaynu la socono dhowr iyo 20 sano ee Soomaaliya ay ku jirtay dhibaatooyinka kala duwan waxa soo baxay warbaahinno tira badan oo intooda badan ku salaysnaa baahinta fikrado shakhsi iyo sidoo kale beela gaar ah iyadoo waliba ay caadi ka noqotay bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda in idaacado amba website-yo ay ku hadlaan afbeeleedyo isla markaana ay beela kale ama shakhsiyaad kale ay wax uga sheegaan maadaama aysan jirin cid kala xisaabtamaysa sidaas oo ay tahay haddana waxa jiray oo aan meesha laga saari karin idaacado mug iyo miisaan ku dhexlaha bulshada Soomaaliyeed iskuna dayay xilliyadii adkaa in ay ka qayb qaataan raadinta xal waara oo Soomaaliya ay hesho inkastoo dadka qaarkood ay idaacadahaasi u jeedinayeen eedeymo kuna tilmaamayeen kuwa u adeega dad gaara ay wax u qoraan website-yo badan aanu daadago dulucda warbixintan oo aan rabay inaan ku iftiimiyo aragtidayda ku aadan qaabka ay wax u qoraan qaar badan oo kamid ah website-yada afka Soomaaliga wax ku qora kuwaasi oo caadaystay dicaayad iyo fadeexan joogto ah oo ay u geysanayaan gudahan magacii Soomaaliyeed meelna uga dhacaya sharciga warbaahinta ee caalamka iyo kan Soomaaliya intaba tira badan oo website-yo ah waxay doonaan qora ayaa si gaar ah si guudba ugu xadgudba sharciga caalamiga ee saxaafadda iyo sharafta ummadda afka Soomaaliga ku hadasha mana jirto cid kala xisaabtanta meel ka dhac kasta oo ay geystaan qorayaasha bogagga wax lagu baahiyo waxaana dad badan aaminsan yihiin in waxa sii kordhiyay badashada webabka wax lagu aflagaadeeyo ay tahay dhowr waxyaabood oo isbiirsaday sida inaysan jirin dawlad awood u leh xakamaynta iyo ka warqabka baraha baahiya beenta iyo si xun wax u sheega mihnada saxaafadda oo iyana bulshada dhexdeeda ka noqotay wax qof walba uu sheegan karo una adeegsan karo meeshii uu doono isagoo aqoonteeda aan lahayn sidoo kale dacaayada iyo fadeexaynta shakhsiyaad aan mudnayn ayay dhaqaale kaga raadsadaan website-yo badan waxaana dhaqaalahaasi uu ka imaanaya booqashada la yaabka iyo amakaaga oo ku dheehan yahay ee lagu baahiyo baraha ku canuqday cilada caayda iyo sidoo kale ka careysiinta cid waliba oo culimadu ay ku jirto diiniyan ma banaana in qof muslim ah aad ku xadgudubto isla markaana wuxuu ahayn aad ka sheegto waxaana taasi daliilkuuga ah hadalkii nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa aatee oo noogu sheegay in qofka muslimka dhabtiisa uu yahay qofka laga mangalo afkiisa iyo adinkiisa sidoo kale ma jirto meel ay kaga qoran tahay sharciga saxaafadda caalamka iyo kan Soomaaliyaba inaad aflagaadeyso qof ama sharaftaada dhibaato u geysato waxa in la sheega ay tahay in wariyaha uu qalad gali karo isla markaana ay haboon tahay inuu raali gelin ka bixiyo hasaatee taabadalkeeda xilligan ujeedka milkiilayaasha website-yada wax lagu aflagaadeeyo ma ahan waxaana ay ka raadiyaan oo ay ka doorbidaan shilimaad sharaf dhac wata
dhaqaalaha ka yimaada qoraal muuqaal fadeexad iyo aflagaada huwan micnihiisu waa hal booliya nirig xalaal ma dhasho isdareensiinta danaha yaryar ee aad ka leedahay dad waxun ka sheegana waa daqaro iyo dildilaac aad u geysatay daaficida dalkaada diintaada iyo dadkaada daboolna ma saarna inay tahay damiir xumo ay ku dahsoon tahay dareen la'aanta wadaninimo iyo sidoo kale midda dadnimo websaydyada caadaystay meelka dhaca sharafta shakhsiyaadka isugu jira madax iyo shacabba waxaa bulshada intooda waxgaradka ee dareemaysa dhaawaca ay geysanayaan kana danqada arrintaasi ay u arkaan in qayb weyn ay ka yihiin jahawareerka ku dhacay bulshada Soomaaliyeed muddadii dhibaatooyinka ay ka jireen dalka Soomaaliya waxaana ay hoosta ka xariiqayaan dadweynaha Soomaaliyeed in badashada websaydyada ay faa'iidadooda iyo qasaarahooda uu badan yahay qasaaraha iyo dhibaatada ay geysanayaan iyagoo kula taliyay in la xakameeyo cid walba oo awooda isku dirka qabaa'ilada fadeexaynta faraha badan ee websaydyadu ay qaarkood ka dhigteen bogagooda hore waxaa ka sii daran soo gudbinta dhaqamo ay ka soo minguuriyeen meelo kale iyagoona laga yaabo in wax badanba aysan ka fahamsanayn dhibka uu geysan karo kama qarsoona qof walba oo qaangaar ah in warbaahinta ama wariyuhu uu yahay qof xilsaaran yahay lagana rabo inuu u guto sida uu yahay gudashada waajibkaada aad wariye u tahay waxa ay dhaxal siin kartaa qofka inuu noqdo qof laga jecel yahay bulshada dhexdeeda isla markaana magac iyo maamuus ku dhexle dadkiisa iyo dalkiisa laguna abaal mariyo mar walba dadaalkiisa inaad ogaato mas'uuliyadda ku saaran haddii aad tahay wariye wax ku qora website wargeys ama wax ka baahiya idaacad TV waxay u baahan tahay akhlaaq aqli degan maskax fiyow aqoon iyo waayo aragnimo xeel dheer waan hubaa in dad badan ay ka dharagsan yihiin dhibaatada baahsan ee websaytyo badan ay ku hayaan bulshada Soomaaliyeed iyagoona u baahiya waxyaabo aan wanaagsanayn waxaana su'aalaha isweydiinta mudan ay yihiin sidee looga hortagi karaa sharciga saxaafadda Soomaaliya ee dhawaan la ansixiyay muxuu ka bedeli karaa websaydyada xumaanta huwan una soo kordhaya sida xawliga ah culimada Soomaaliyeed maxay uga aamusan yihiin in websaydyada xumaanta baahiya ay ka hadlaan oo ay ka wacyigeliyaan bulshada ma dhici kartaa in lala xisaabtamo shakhsiyaadka caadada ka dhigtay cayda shacab iyo madax intaba haddaba haddii ay jirto dhaliil aad soo jeedinayso oo ku saabsan ka hadlidda warar been abuur ah dicaayad iyo meelka dhaca anshaxa saxaafadda waxaad akhrisan kartaa qodobka 19aad firqadiisa 2aad ee xeerka saxaafadda Soomaaliya faahfaahin macluumaad been abuura